dalku madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen uu yeelanayaa dalku laba xisbi ayaa siyaasadiisa loogu tartamayaa dalku wuxuu yeelanayaa doorashadiisa xilligan hadda bilowga ah muxuu ahaa doorasho la yiraahdo matalaada dhammaystiran proportional representation afka qalaad lagu yiraahdo oo yeelanayaa dalka oo dhanna waa hal degaan doorasho waay asbaaban marka aad jirto waxaan rabaa maanta inaan halkan idinkaga qeexo asbaabta waxaas aan u keenay isaga maanaan riyoon umaanaan arag in ay muxuu ka araaday qof gaara iyo qolo gaara iyo ay maslaxad u tahay laba mabda ay ku salaysan tahay mabda'a koowaad waa midka hadda sheegayo dadka inaan ka ilaalino wax kasta oo ay ku kala qaybsami karaan oo ay ku sii kala yaaci karaan waa qodobka labaadna mabda'a labaadna waxa waaye dalka wax kasta oo horay u waday oo meesha aan taaganahay naga dhaqaajinayo in lagu dhiirado say tahay haddaad xasuusataan inta oo akhyaarta meesha fadhida aniga cimrigayga iyo inta ila mid kaale waxaan joognay oo soo aragnay 1969 doorashadii dhacday yaan joognay 82 xisbiyaan uga qayb galnay hangoolka wanka maxaan ku raraa quraca maxaan ku raraa geedka oo dhammaan macniisu yahay reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel oo afka laga dhowray sideenaba ceebta aan leenahay waxa reer hebelkii afkan waa ka dhowraynaa cibaadadiina xataa waa naga dhex gashay reer hebelnimadii ma sheegeen afkan waa kala xishoonayna ficil kasto on dhaqaaqan on tilmaan qaadnana reer hebel uu tilmaamaya ama uu hiiliyo ama ha ka hiiliyo wuxuu doona ama ku faano ama ha ka faano wuxuu doona ha ahaatee waxaas dee dhaqan oo suuban oo dadnimo oo wanaagsan maaha reer hebelnimada horta waa la sheegaa la qarin maaha laakiin meesha ay leedahay ayaa la dhigayaa reer hebelnimadu meel ay leedahay meel kasta ma leh hal qabiil oo jamhuuriyadda Soomaaliya meel kasta ku taalo wada degan ma jiro kulligiis meel walba muxuu ahaa majority ku ah asiga degan ma jiro reer hebel degaan yar oo geographic oo degme hebel la yiraahdo tuulo hebel degan yihiin masaalixdooda iyo danahoodana deegaankaas iyo meeshaas ay degan yihiin iyo cidda dariska la ayay kala dhaxaysaa oo Soomaalida kala ah see reer hebel marka ninka maslaxadiisa ay degmada boqocda yarta ku kooban tahay arinta 14 milyan oo Soomaalida soo taladiisa oo u saytarayna asiga u hogaamina talo ku leeyahay waxba ku leeyahay 20 milyan oo kamid yahay laakiin inaan reer hebel dalkan ku xukunno oo xukunkiisa ku qaybino oo taladiisa ku wadaagno oo wixii isku wadaagnaay si mandaqa ma haddana mariyonayno hal subaxa reer hebel albaabkiisa la soo aaday dhamaanteen intaan joogna anagoon reer hebel ahayn dhihimeyn reer hebel loo waan nahay reer hebelnimada meesheedaan geysanayna ka shaqeeymayna marka wax oo reer hebel iyo reer hebel siyaasadda qaranka loogu istaago ma doonin xisbiyo hangoolka iyo wanka iyo oo reer hebel ah inaan fududaynahay daw ma aha aqlina ma aha siyaasadda inaan wada lahaano hadii la rabo labada xisbi waxaan ku keenay inaan ku khasbanahay aniga ninka reer hebel inaan wax la wadaago ilaa degaan hebelka reer hebel ay degan codaan ka rabaa asna codow iga rabaa meesha aan deganahay kaas kalena codaan ka rabaa asna intuu ka rabaa sidaas daraadeed xisbigu wuxuu ku qasbanaanayaa inuu koonfur iyo bari iyo galbeed iyo bartamo iyo meel kasta inuu dad ka raadsado reer hebeladii inay inta isku yimaadaan ay helaan masaalix ka dhaxaysa fikir ka dhaxeeya isla leeyihiin isla wataan inuu noqdo xisbigu waay ee xisbi reer hebel u gaar ah waa mid aan ka cararowhayn hal la furo xisbiyada hal iska fasaxa ninka dhahayana waa ninka albaabkaas inuu furo rabo waay waxaan rabnaa marka dadka in ay dawladdu ka shaqeyso dadka inay isku soo noqdaan isu yimaadaan tala wadaagaan cidii israbto isku ra'yahay israacdo laba xisbiyaan dhahnay waa talada ujeedada iyo hadafka aan kaleena intaas ay ahayd dadka in wax ka dhaxeeyaan isku yimaadaan isku khasboonaadaan oo aanay kala beeqin oo wadooyin kale aanay ku kala leexleexan waa soo bandhignay waxaan dhahnay saan ha loo dhigo golayaashii iyo dadka wakiilka ka ahay iyo baarlamaankii iyo uu yaalaa iyo dawlad goboleed wax meel dadka Soomaaliyeed oo dhan ra'yiga aan wadnaa waa kaas walaalayaal haddii mid ka fiican waxaan kaloon ka digaynaa diidmada in yow ma shaqaynayso wax waa diidi kartaa xorata wax waa kula qumanaan weynayaan laakiin caqliyaad leedahay intaad fadhiisato waxa aad maya leedahay wax barbar dhig kan ma fiicna sababtaan aanu ku fiicnayn kana ka fiican oo fiicnaantan wata dheh laakiin maya ma ogoli ma yeelayno ma ka dhacayno bas ma shaqaynayso waa diidi kartaa waa ka goos qabsan kartaa laakiin fadlan soo barbar dhig
waxa anagu asbaabtaas aan sheegnay iyo kuwa yow kaloo badan oo aan sheegi doono ayaan ku doorano ku keenay ra'yiga labada xisbi soo barbar dhig saddex laga dhigadhe afar laga dhigadhe sababta saddex iyo afar mugan tagno noogu wanaagsanaanayso noo sheeg waa qaadanayna anaga maxuu ahay laba xisbi hal qaato ayd munazal oo soo degtay ma aqli waay laakiin aqliyan rabnaa inaan meesha soo barbar dhigno labada xisbi ma fiicna maahan ha maxaa fiican saddexdu maxay ku fiican tahay labada xisbi waxaan dhahnay lagu wadooyinkaas lagu kala dhumay maaha labada xisbi waxaan waxay naga badbaadinay xukuumad sanad kasta inta la soo dhisa dhacda ayay naga badbaadinay haddii afar shan xisbi la noqdo oo xisbi majority la waayo oo coalition hala dhisa la yiraahdo oo xukuumadda la isku keena la yiraahdo oo xukuumadda maalin walba ay dhacdo ay waxaysanto ama la maamuli waayo oo madaxweynaha la doortay dadka loo doortay ay maamuli waayaan oo xisbiye is haystay dad haddana is haysto war haddaan wadooyin khilaaf oo kale aan is yarayno intaan is yarayn karno ra'yigeedu waa intaas laanna waa ogtihiin maxaan uga soo guuraynaa maxuu ahay hybridka systemka isku dhafnaay annagu hadda parliamentarianna ma ahin presidentialna ma ahin madaxtooyena ma ahin ra'iisul wasaare iyo baarlamaanna ma ahin meel dhaxoo isku jir ahaana waa midaas midda keentay 1960 laga soo bilaabay ilaa hadda in la waayo taariikhda Soomaaliya hal madaxweyne hal ra'iisul wasaare isla dhameystay taariikhkooda waa la waayay taariikhku ugu fiicnaa laba ra'iisul wasaare soo jirtay taariikhda qaarkood shan ra'iisul wasaare la soo maray ra'iisul wasaare in oo xodka laga qaadaahay bil iyo ka dheeray u baahan tahay laba bilood baarlamaanka iyo inay ka doodaan oo ay diidaan ama ogolaadaan hadiiba laga qaadana madaxweynuhu inuu ra'iisul wasaare kala soo magacaabo bil kale waa isna haystaa kan ma ka dhigtaa reer bil ma ka dhigtaa kan ma kan ka fiican kan amu ciladan leeyahay sida lagu leeyahay bil waa dhamaataba baarlamaanka in la geeyo oo ra'iisul wasaare la ansixiyaa waa waqti kale ra'iisul wasaare bil kale la tacaalaya yaad wasiir ka dhigtaa reer bil ma wasaaradan siisaa taas kaas baad siisaa kan ma qaadataa haddana ka daran waa bil kale xukuumadda inay xilka markuu soo magacaabo baarlamaanka inuu ansixiyo waqti u baahan tahay bil bayay dhammaaneen haddii doonto bil kale waxay u baahan tahay in xilka la wareegto xukuumaddii hore tagtay ay kala wareegto bil kalena waxay u sii baahan tahay intay ka fariisanaysay ka fahmayso wasiirkan cusub ee wasaaradda la keenay inta wasaaradda ka fahmayo ugu yaraan minimum marka ugu dhaato hal ra'iisul wasaare mugil la bedelo 6 bilood ayaa process aan gelina 6daas bilood xukuumaddu nooma shaqeyso dawlad noo shaqeynayso waa taagana ilaa sideena u nugulnaay afar sano term markaad ugu yara average waa 3 ra'iisul wasaare marka la isku soo celceliyo 3 ra'iisul wasaare 3 muxuu ahay 6 bilood markaad ka goyso sanad iyo 8 bilood waa sanad iyo bar termkii 4 sano maxaa ka soo haray 2 sano iyo bar sanadka u dambeeya iska dhaaf waa sanadkii la waalanayo oo maxaan ku raadana doorashada iyo kala orarka iyo kuraasraadsiga la galay hal sano iyo bar ma nagu filan waxaan meesha uga dhaqaaqi laanahay number 1 ay ka tahay dawlad fursad haysato oo waqti haysata ama 4 sano aan dhaana ama aan ka badino 5 sano iyo 6 sano gaarsiine waqti loo cayma haysatahay waa soo weynay waa qodob maxaan marka u dooranaynaa mar kale 60kii ilaa haddan laanahay aqliga cusub ee nagu soo kordhay zaa'iday waa maxay dadka taariikhda marka dib u fiirsan dadka kuwa ugu saaxiibsanay oo waligood saaxiib soo ahay intaanay siyaasadda soo gelin ra'iisul wasaare madaxweyne inta isku noqdaa si aan heshii waay oo wada joogi waay dabeecadda asaas ka dhigayso waxa meesha yaalla saa ka dhigay waxaan kala cadeyn isku raran aan mas'uuliyadaha aan ka wax badan isdhex yaacsan waa qodob afrikaan ku naalnaa 54 dal ayaa ku taala afrika cilmi baaris dib baa loo sameeyaa meeqa dalaa muxuu ahay horta sideedaba ma hybrid iska dhaaf ma jiriyaba meeqa dalaa parliamentarian oo ra'iisul wasaare oo xukuumadooda iyo wuxuu u maamulaa Ethiopia yaa ku soo dari kara 53 dal ama 50 dal aan dhaano kuwa monarchy boqortooyooyin ama ka soo tagno 50 dal oo afrika ka jirtaay annaga ka aqli badan Soomaa ayuu aqli ma qabaan ma gartaan inay nidaam oo isku dhafan inay sameystaan ma gartaan annaga sameysana annaga socodsi kara Soomaa war waxaas wax jira ma aha kama aqli badin sidana maxaa asalkeeda intuu ka timid hal meel waa is aamini laanahay farqa iska raaracna dada markaan aan doodaas aan la galo waxay dhahaan waxay midaal u soo qaataan rasuulka kaleey salaatu wasalaam iyo xajar aswadkii qabaa'ilkii Makka ee isku haysteen marada inta u dhigay mid walba dhinac ka qabateen waa run waa dawlad dhisida hadda aan wadno on darfa aan ka wada qabano laakiin xajar aswadkii maalintii meesha la dhigo yaala ilaa hadda Soomaa miyaa laga raray haddana anagu wax kama geeyno waa la soo raraya ama anagu raali kama ahayn maalintii la geeyay qolo inta tirmaal dhaay xajar aswadkii meesha laga raro
darfaha aan ka wada qabano waa run dawlad dhisidii aan darfaha ka wada qabano aan meel dhigno wanis aan meel mar haddaan meel dhigno kadib waa dhammaatay meeshaasay noo taallaa marka yaanan muxuu ah waxyaabahaas iyo doodaha dadba meel ka gashay war anagu dadkana kama aqli badnin kamana tira badnin kamana cilmi badnin meelaha qaarkood waxaan ugu tumaa inaanba intaasoo dhanba dadka ka yarnahay laakiin caqligaan leenahay dalkaanaan leenahay dabeecaddiisaan naqaanaa 33 sanoon joognahay intaasoo dawlad iyo caalam ayaa isku dayay dawlad inay noo dhisaan waa noo dhisi waayo noomana dhisi karaan annaga Soomaali ayay ka xirantaa dawlad inaan dhisno dalka waxaan dhahnay laba xisbi ha yeesho asbaabta iyo intaasaa ka mid ah iyo kuwo kaloo fara badan oo waqtiga una ii saamaxayn waxaan dhahnay waayo aragnimaan leenahay doorashadii ugu dambeysay baarlamaanka haddaan ka soo qaado labada gole aadaa tabashooyin badan cabasho badan uga jirtay waa la isgacan maroojiyey nimaa dadkii qabaa'ilkaa dood qabo muxuu ahaay siyaasiyiintii dood qabta nimaa talada iska qaatay oo iska waxaystay nimankii aan eedayna aan lahayn waana gacan maroojiye waana waxayna waxay joogaan war sidii hore si loo noqon karo ma aha sidii hore si loo noqon karo maaha ayaga aan eedayno shalay waana gacan maroojiyeen wixii oo dhan ayaga qaateen aan lahayn ayaa maanta qabo sidii hore looma noqon karo aan si kale la nimaado sidaas daraadeed isku haynta iyo isku soo celinta dalka ayadoo laga duulayo waxaan dhahnay dalkaani hal guddi doorasho yeelanaya hal guddi doorasho ayuu yeelanayaa dawladda hoose ee degme hebel golaheeda deegaanka doorashadooda laga soo bilaabo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda marka la dooranayo laga keeno halkan guddiyaa maamulayo khubaray u baahan yihiin farsamo yaqaanay u baahan yihiin adeegayaal farabaday u baahan yihiin boqolaal kumanaan qofaa laga yaabaa guddigaas inay u shaqayso dalka daafihiisa kala duwan oo dhan joogta laakiin waa guddi waa hal ma dhacayso tabartaadu yay ku ciilin dadkaaga cod ka keenso deegaankaagii aad yaa igu kooxahay dhahdaa rabtid war xisbigaanaan wataayo muxuu ahaayey cirka ka soo degay dhahdaa rabtid adiga codaa laga rabaa dadkaaga inaad cod kala timaado oy kalsooni ku siiyaan hebel ayaa xildhibaanka deegaanka noo ah hebelne waa xildhibaanka dowlad goboleedka uu noo yahay hebelne xildhibaanka federaalka uu noo yahay cali ma rabno muxuu ahaay jaamacaan rabnaa inuu madaxweynaha dalka noqdo maxamed iyo cabdi iyo caashe iyo dadkaan kaloo ordaayo dhan ma rabne muxuu ahaay cabdiyaan rabnaa inuu madaxweynaha dalka noo noqdo go-aanka dadka inay helaan loo maareeyo loo maamulo oo loogu maamulo waxaan hadda ka heshiin doono dastuurka ku qoran sharciga doorashooyinka ku qoran sharciga xisbiyada ku qoran inaan u hogaansanoon ilaalinoon raacno bas dowladnimo macnalama anigu ma aaminsani dad kale waxay ku doodaan madaxweynaha shacbigu soo doorta awood badan uu yeelanayaayo dictator uu noqonaa aniga ma aaminsani dalkaani dictatornimo inay ka suurto gasho daliil maxaa u ah waxa dhexdeena yaalla u ah dhibaatooyinka dalka meelo badan buuqa iyo xasaradaha ka taagan oo dhan waxay ka dhasheen teeran xukun dad loo dhiibay oo wakhtigiisii dhammaaday qodob waay iyo mid wakhtigiisii dhammaan raba laakiin sida looga gudbaya aan la garanayn haddii wakhtiga dhammaan rabo sida wakhtiga dhammaada looga gudbayna aanan la garanayn hubanti la'aantaasi waxay keenaysaa dadku in ay shakiyaan oo la kala durko oo qof walba cabsi gooni waa tuugga waana dhici rabaa la yidhaaho iyo inuuna sii haysto rabaa la yidhaaho waa sababtaas sanadkii koowaad ee talada aan joognaa aan miiska u soo saarnay 2026 sida loo gudbaayo haddaan rabnaa taladeeda inaan gaaro 6 bilood ugu dambeysay sanadka ugu dambeeyo ma suurtoobaysa haddaan rabnaa in muxuu ahay taladeeda la gaaro 2026 sida looga gudbaayo oo dowladda dambe imaanaysa madaxweynaha dambe baarlamaanka dambe talada dambe heer qaran ah ee imaanaysa sida loo waxaynayo walaalayaal dad adduunyadu waxay gaartay heer annagu 15 milyan iyo wax lamid aan sheeganay ayadoo 100 milyan ku dhow ama 100 milyan ka badan ama bilyan iyo jarjar ah India kale doorasho hal maalin ah inay maalin walba aanay qaab darro u taagnaan hal maalin ay soo howldeeyaan doorashada u soo howldeeyaan
لأن دورشة دتك ولا مرة إلا قرن كي قاعسان هاي كي إسكول آذاي كي جامعة آذاي كي معذار ميركول هاي كي محنكور آذاي كتب آخر لهاي كي صفر لهاي دورشة دو إنك قيب قراني ربان هل ما لمرك والله سوى هول دين كرا لكن هذا إسكده بس عطو وبشان ودورشة سدح بلاد كلا كبعد ودورشة لح بلاد كلا وتاس كلا وأفرت سنة للجوجا بقى أي دورشة سنة كيف الله سدح دورشة عن كل حجرنا تكار ما شقي سنة هنا dadku si doorasho noocaas ma xamili kara adduunyada waa aragteen 6 sanduuqa inta la soo dhinac dhigo oo ninka qofka wax dooranaya gabar iyo wiilba 6 warqadood la siiyo oo qolka la galo soo kala calaameeyo warqadan cagaaran inta ku rid midaan guduudan inta ku rid midaan cad xagga ku rid midba meesheeda ku rida oo la dooranayo dawladaha hoose ilaa madaxweyne la dooranayo halkaas maalin subaxdii bilaabataa maqribkii dhamaata 12 saacadood socota waa lagu kala tagaa annagu dawlad goboleed hel doorashadeedii dawlad goboleed kala doorashadeedii doorasho kastana ilaan shuruuc waxaan cadeyn qawaaniintii oo ciyaarta la ciyaarayo isbartiibada kooxda ciyaaraysa hadii aanay qawaaniin lahayn oo 11 inta la isku keen ciyaar la yiraahdo maxaa ka dhaxdhacay war wixii saasay naga yihiin waa isardinayna waa isdardarayna waa istuhmayna waa ismajaxaabinayna dhamaan laakiin hadii aan ognahay qawaaniinta ciyaarta sida loo ciyaarayo ciyaarta siyaasadda sida loo ciyaarayo hadaan naqaan sidaasaan raacayna nooma waxaysna wixii inaan mar walba madaxyada isku dhufano marka waa doorasho kasta oo dalkan ka dhacday dib u raac ee dawlad goboleed waa midda xasarad la'aan dhacday waa midee xasarad la'aan xasarada ugu yar buuq iyo qaylo iyo idaacadaha la taagan yahay oo dadku dhawaaqayaan waay midda ugu liidatana waa midda qori inta la isku qaatay dhiig la iska daadiyayba la isdilay sidaas daraadeed maalin walba dabdamis inaan ku jirno dawladdu waxyaabaha ay la socon weydaa ka mid ah kashaashimo uma hesho howlihii laga rabo dhan intaa dhiig ayadoo lagu leeyahay dad Soomaaliyeed inta isku laayno dhiig ka daadanaya oo maxay isku haystaan siyaasadda isku haystaan leeyahay maxaad samayn kartaa waa inaad ku carartaayood ayaga sidaad u xalileed aad ku mashquulshaayood daba taagnaataa xaggaad Soomaali dad Soomaali isku dilan maxay isku haystaan qabiil isku haystaan waa taqaan war aawo odayaashii dhaqanka aawo qabiilkii aawo odayaashii ku baxa dadkaas hala soo waxay aad leedahay laakiin siyaasadda isku haystaan marka la yiraahdo siyaasadda nabadoonadeedii iyo qabiiladeedii annaga waaye marka waa inaan ku baxnaa waa inaan xafiisyadii ka tagnaa oon meel tagnaayo dhex fadhiisanaa dhaana war sidaan si maaha waqtiga ku dhumay ku daayacmay war waxaas ma awoodno hal mar hanaga ahaato loogu danayn mayn qaraarka dawlad goboleedyada hal mar inaan dalka dhan isku keenno sida saxda ah waa isku keen weyn war bal 3 waqtiyo la yaqaan aan ka dhigno marka dambe si uun hadana aan soo doono aan soo keen karna aan soo keen siyaasadda maxaa la yiraahdaa ومحايا فن الممكن أما محاها فنك صورة جلك على قبكر وح على قبكر صورة جلك يلا قشقة وح قرحون وأن لا قبكر ما أنتون إن أنقوا هذا عقله معنا ما سمعنيش ورهالمر مكوّد إني كرنا ساكت إذا سد عن كذا دولة ده هو الجمهورية دن قرياش الدجانك عن مدين الدور شدود هالمر هذا عضو دولة جمهوريتنا الدور شدود عن مدين هالمر هذا عضو دولة فدرالك دورشديدنا سيد عادي هل مرة أو بالعيد هل مرة بعده next term عدي إلهي وكانوا ثلاثة قبطابة أنا هذا نسكسر علينا عن صايرين إلى مرة قد بس أنك جارنو هل مال دورش إلى أنك جارنو وضدس عن مرة رأيك عن مدي عن دولة ده هو أما قرياش الدجانك دورشدو دي وحيد عيسى بيش الجون لبكون لباتين أفر deegaanada qaarkood hadda la sameeyay waa la yaabaa in joon koor la siisa sameeyo laakiin waa kuwada meel gaar kulli dawlad goboleedyada doorashadoodana isla sanadka 2024 bisha November ha dhacdo tan federaalkan waa la yaqaan waqtigeeda 15 May bisha May maxaan ku raadahay 2024 ha dhacdo waa sidii loogu talagalay intaas horta dad loogu daneemay qofna xukun loogu kordhimay qofna maxaan ku laga soo dhimimeen waxay isugu jiraan dawlad goboleedyadu kuwa afartoodii sano ay November 2024 ay ku egtahay oo sanadkii kororsiimada ay qaateen laga celiyay oo dhaadhay ka jooga kuwa xilligoodii dhamaaday sanadkan 2023 laakiin ay duruufta naga geysay inaan waqtigaas aan geyno iyo kuwa kale oo ka sii hor 2023 ka hor xilligoodii dhamaaday
oo ay ahayd 2023 doorasho inay galaan oo ayaguna aan dhahnay maadaama wixii aan midayna aan dhahnay waa qodob aan isku geyno doorashada aan geysano meeshaas loogu danayn meen qof extension ma aha laakiin dalkan meesha uu joogo taagan yahay inaan ka dhaqaajino oo hore u socdo waay marka walaalaha waa garanayaan siyaasiyiin badan oo waqtiga teeramka fiirsanaya jira dad badan oo xukuumadda iyo maamulada qaarkood inay dareen ku qabaan oo aanay raalli ka ahaynaa jira oo u dareemaya in waqtigu ku sii dheeraado waa ka garaabaynaa waana garanaynaa war dalkaani inuu midaysnaado oo isku toosnaado oo dawlad dhexo xoog badan oo talo badan leh ay dalka timaado awood sharciyeed ay wax ku dhaqan gelisa leh ay timaado raalli laga yahay waa danteena ma joogi karna meesha aan joognay 23 sano la soo dhaafay ma joogi karna meesha aan joognay sanadkii la soo dhaafay ma joogi karna meesha aan joogno teeramkan ee xukuumadda iyo dawladdan hadda ay jirtay meesha aan joogna ma joogi karno si aan uga dhaqaaqno bari aan meel fiican u igsana waa in hadda shaqo qabanaa shaqadii aan meeshana la gashay dadka qaarkiis waxaan aad iyo aad u raali gareynaa in aanay u arag inaan nin gooni aan privilege siinayno inaan nin gooni waxaynayna aniga waa la yaqaanaa mowqifkayga teeramka in la ilaaliyo ah haddaan teeramkii horon jooga ay tahay iyo haddii intii aan bannaanka joogay oon siyaasadda mucaaradka ahay ay tahay iyo hadday hadda tahay laakiin walaalayaal inta haddaan fiirin inta fiirin waxaan intaasoo dhan aan war ra'yi aan ku midoobi karnaa weyna hadda kiyaan u dhownahay aan kan iska taageerno siyaasadda sideedaba haddaad siyaasi noqotid hal mid waa inaad aqbashaa haddaad aqbali wayso siyaasi ma ahid dadku qaarna inay kugu ra'yi noqdaan qaarna kaa ra'yi duwanaadaan inay aqbashid waa horta dadku inay jiraan qaar kaa ra'yi duwan asbaabtay doonaan kaaga ra'yi duwanaan adiga shakhsiyan iska kaa necbaadaan hadday doonaan inkastoo wax fiican aanay ahayn laakiin ra'yi kaaga duwan yihiin dadku dareenay kaaga duwan yihiin laakiin waa inaad aqbashaa ood ogolaataa laakiin qofkaa ra'yi duwan markuu xagga ka hadlo haddii jirku ku gubto oo aad canaanyoto waa dhib waaye sidaas daraaddeed waxaan leeyahay nimanka saaxiibada ah ee maamulada joogana aan dhowr maro horena aan hoos iyo kor ugu shoornay in laga ra'yi duwanaado horta inay ogolaadaan laakiin ra'yi duwanaantaasi waa inayna noo sababin inaan maxaan ku idhahday aan majaha intaan isqabana aan isla degno oo maamulkii iyo nidaamkii iyo taladii ay naga baaba'do laakiin kale ra'yi duwanaanshuhu waa inay noo keentaa waxa jira ee lagu kala ra'yi duwanaado wax ka fiican oo aan beri isu gudbayn sidaas daraaddeed talada oo aan xilliyadaas doorashada aan xadidnay waxay ku aan soo jeedin waxay ku taagan tahay masaalixdaasi ku taagan tahay iyo kuwa yow kale oo fara badan oo aanan hadda halkaan ka soo tixi karin sidaas daraaddeed dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay dulqaad u yeeshaan wadada dawlad dhisiddu waa xanuun badan tahay way laablaab badan tahay laakiin inaan ka gudubno oo aan meeshii tagnaa teeramkuna nabad ku dhamaado wax walba maxaa ugu xun in la isdila ugu xun in dhig daata ugu xun wax kastoo kaloo jira wada hadal aan looga dhaqmi karaa waa laga heshii karaa dhiig hadduu daato ayada la sideeda waa laga wada hadlaa waan laga heshiinaa laakiin utunu reebaa dhiiguma sahlana si sahlan kuma baabao dhiig hadduu daato utun qalbiga ku taallou reebaa waa 33 sano kadib xukunkii dawladdii dhacday ilaahay haatan dad inay ka qabaan tabashooyin aan la xalli karin ay ka qabaan weli oo taagan yihiin ay maalin walba sheegayaan oo hadalkii ka hadaaqaan ay ku hadaaqaan waa maxay dhiigaa daatay war siyaasadda waa xalli karnaa waana ka heshii karnaa ninna yaanu maslaxad iyo wanaag iyo haybad iyo karaamo ka raadinin iyo sharaf wadda aakhirkeeda aad u jeedid in dhiig ku daadanayo meesha ay ku dhammaatahay oo dhiig daadanayo